dhawaan ayay ahayd markii uu warbaahinta la hadlay ee uu iscasilay gudoomiyihii gobolka Salal ee xisbiga wadani Farxaan Maxamed Yuusuf isagoo iscasilaadiisa gudoomiyuhu ku sababeeyay kadib markii uu sheegay inuu la tashaday qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta dawladda ee iyagu ka tirsan xisbul xaakimka talada dalka haya iyagoo sheegay inaanay jirin cid aan isaga ahayn oo ka tirsanayd xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo uu maanta iska casilay haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi ayaa iyagu halkaasi ka sheegay inuu dadaal weyn ka qaatay iscasilaadda mas'uulkani ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo ah wasiirka cadaaladda Somaliland si kastaba ha ahaatee hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka cadaaladda Somaliland iyo gudoomiyihii gobolka Salal ee xisbiga wadani ayaa waxaa jawaabada ka bixiyay siyaasi Cabdilaahi Nuur Xasan oo ka tirsan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ahaana gudoomiye ku-xigeenkii kaabeenka ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay hadalkaasi ka soo yeeray mas'uuliyiintaasi isagoo sheegay inaanay waxba ka jirin waxaana ka mid ah hadaladiisii bismillaahir rahmaanir rahiim aniga siyaasi Cabdilaahi Nuur Xasan kana mid ah mas'uuliyiinta sare ee xisbiga wadaniga gobolka Awdal aan ka hadlayaa war ka soo yeeray shalay ayay ahayd markii uu iscasilay gudoomiyihii gobolka Salal ee xisbiga wadani Farxaan Maxamed Yuusuf isagoo iscasilaadiisa ka dambeeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka iyo gudoomiyuhu waxa sheegeen gudoomiyaha iscasilay wasiirku waxa sheegay inay la tashadeen bulshada waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhaqameedka beesha markay la tashadeen oo arkeen xisbiga wadani waxa ugu jiray kulmiye u digrowtay taas cadeynaya inay waxba ka jiraan tahay aba yaraatay hargeysa ma joogaan waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo odayaasha ma joogaan hargeysa waxa jooga halkaan joogno gobolkay joogaan degmooyinkay joogaan tuulooyinkay joogaan marin arag kabool habeen wuxuu ka hadlay hargeysa taasi waxa weeye waa been abuur aan waxba ka jirin taas cadeynaya xisbiga waxba ka jirin oo inuu tahay been abuur wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaan leeyahay kuma jirin kaasoo kaliya tii waa la badan yahay مسؤولين بلندا كجرتا بوشة بلندا كجرتا أفكلا شخصية تيسا يسكو عسلي دتيسو يسكو عسلي دل بلد يسكو عسلين أو باشون طي بلسكو تنادو تشاطي أما الحسن الديسي أما المسؤولية السياسية واحد يسكو يمدين أو يتشادين اسمه يورنا أكا كدقرونه أو يدقرونه حسب حاكم كدقرونه اسمه يورنا السياسة عليها كل يتاق وسطعين وسعسلو dabeyna waxa ku dhiirigeliyay wasiirka xilli imika oo doorashada oo xasbay tayina maaha loo baahnana maaha isaga ayaa waxa weeyaan dadkiisa raacay waa kali cidna lama socoto haddii aan nahay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Salal amba awalba waxaan leenahay anagu waan taageersanahay xisbiga wadani boqolkiiba boqol baan taageersanahay kaas wuxuu ka mid yahay kuwa badan oo Soomaaliland oo kolbalada socdo كل أسعد حاجة كل حزب كل يسعد كل حزب يقدر يسعد بكل مدياي وعكلوا بير ملا وتاجرنا ولا تاجر دورنا هي هو ولا جوجنا ويا حزب كل يتركب حنا الله وحوي يسبدل قوين سأل الله واركتنا ما رجع وحوي حزب قال إنك ترى هي كل مية كل كهرباء السامي هذا سكوا هاي أنت هاي نبيك كانوا حكي سيفنا الواحد كلام من هالعلية هالكلام من هالعلية gudoomiyaha musharaxa madaxweynenimo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo ku-xigeenka Maxamed Sheekh Cabdi oo maraya gobolada iyo degmooyinka dalka oo u mahadceliyay dadkii u soo codeeyay halka codka ku helena ayuu wali hadana mahadcelin inuu soo marin gobolada iyo degmooyinka iyagana aad buu salaamaya wala habalyeelaya wala ku maasan yihiin haddii ay soo bixi lahaayeen saaya si ka badan bay mari lahaayeen iyagoo soo bixin bay marayaan laakiin maanta haddii soo baxaan maxay leeyihiin ala qof bay mari ala shakhsi bay mari lahaayeen aad baan salaamaya Mustafa Hussein Abdi Mustafa Garbo